ha i weydiin isbeddelkayga hana i weydiin sababta aan ku ilaabay ma jirto dhir ama geed sii qurux badnaada waraabin la'aan inaan ku ilaabo caafimaadkayga ayaa ku jiray mar hore hala yaabin sida aan kula hadlayo maanta waa hadal aad istaheshay mar hore balse jacaylka aan kuu qabay ayaa ii diidanaa in aan afka ka sheego adiga kama dhalan reerkayga balse reerkayga dartaa waan u jari karay laakiin mar bay ahayd hadda ma ahan gacantayda mar bay kaala cabsan jirtay qorallada qaar laakiin maanta ma ahan si kasta u hadal amaad mar labaad dhalan kartaa adigoo qalbi nadiif ah waa may muhiim iima ahan marka qofka aad hadda tahay waana ka marmaa qofka aad hadda tahay aniga waaba ceebsan lahaa qof aan ogahay sida aan yeelay inaan la hadlo laakiin abuurista alle ayaa leh amarkan waad hadli kartaa adiga laakiin waan ku dhagaystay si ixtiraam leh balse ha ku sii adkaysan in aad hadalka sii wadato xusuusahaaga ayaaba dhib iigu filan aniga markaan soo xusuusto sida aad ila dhaqmi jirtay waxaan isweydiiyaa qof noocee ayaad ahayd damiir xumadaada waxaad ii lawsiisay in jacayl laygu dhalay iyo in uu calafku adduunka i keenay jacayl oo dhan wax aan jirin ayaad iga aaminsiisay sidee maanta jacayl igu soo hadalqaadi kartaa aniga hadduu aqligaaga ku celin waayey maanta ku cibro qaado kayga